Kusoo dhawow janaalka Big Deer News. Fadlan haddaad ku cusub tahay janaalkeena saar subscribe, like and share. Gaarsii asxaabtaada kana faa'iideyso adiga dadkana u faa'iiday. Fadlan gaarsii walaalka aan ogeyn kanaalka. Sidaan wada ogsoonnahay, Muqdisho waa caasimada dalka Soomaaliya. Muqdisho waa maxay sababta ay ugu badan yihiin qaraxyada, dhibaatada iyo halaaga? Sidaan wada ogsoonnahay, ummad walba meel ayaa caasimad u ah, meel ayaa u ah magaalo madax. Markaan ku leeyahay magaalo madax, waxaa waaye tusaale ahaan hadda darteed inaad dishid mas waxaad ka dilaysaa madaxa, soo ma? Marka Muqdisho waa madaxdii. Hadda fiiriye Beledweyne waa qurxan tahay, waa magaalo qurxan, webiga dhex maro, beeray leedahay, guryo qurux badan. Sidoo kale magaalooyinka qaar ee Soomaaliya sida Kismaayo kale waa magaalo aad u qurux badan, dhibaatada ay ku yar tahay, qaraxyada ay ku yar yihiin. Sida Beledweyne oo kale magaalooyinkaas oo dhan Soomaaliya qaraxyada maxay sababta ay ugu yar yihiin. Sidoo kale magaalo kale ayaan ku sheegi doonaa sida magaalooyinka Hargeysa oo kale qarax kama dhaco, soo maaha? Marka magaalooyinka Hargeysa, Boorame, Garowe, Gaalkacyo, adiga Soomaaliya waa 18 gobol. Marka waa maxay sababta kaliya ee Muqdisho qaraxyada ugu dhacayaan? Isma weydiisay weliga. Soomaalidu waxay tiraahdaa maska waxaa laga dilaa madaxa. Marka haddaanan maska madaxa ka dilin oo ku qaniinaya. Marka cadow ummadda Soomaaliyeed wuxuu aaminsan yahay madaxa in ay ka dilaan Soomaalida oo ah magaalo madaxdooda. Haddii ay magaalo madaxdooda ay ka dilaan waa ka guuleysteen. Marka shucuub iyo shacbi aan kala saarno. Shucuub waa laba shucuub oo laba qowmiyadood ama laba dad oo la isku daray. Iyo shacbi waa hal shacab. Hal shacabna ma kala go'i karo. Waxaa tusaale ku filan dalalka kale ah Vietnam. Vietnam waxay u kala go'day laba dal, Koonfur iyo Waqooyi. Dagaalkii Vietnam oo Mareykanka soo galay waa ogeed asoo la jira Koonfurta iyo Waqooyiga ee la jireen Sofiyeedka iyo Shiinaha. Waa tii ogeed markii ay dagaalo fara badan lagu hoobtay ay dhacday muddo nus qarni ku dhow laba dal kala ahaayeen, way midoobeen, hal dal ay noqdeen, waxay noqdeen Jamhuuriyadda Shacabka ee Vietnam. Marka waxaad dareemi kartaa halkaas in shucuubaha la kala goyi karo sida midowgii Sofiyeed uu kala burburay kale, laakiin aan hal shacab la kala goyi karin. Hal shacab si walba oo loo qeybiyo, si walba oo loo kala jara wuu isku imaanayaa. Marka sidoo kale shacabka waxaa ka mid ah Jarmalka. Jarmalka waa ogtahay 46 sano ayuu ahaa laba dal oo kala ah East Germany and West Germany. Waxaa kala qabsaday Sofiyeedka oo qayb qabsaday oo Eastiga oo nidaam shuuci ah ku dhaqayay, iyo Westiga oo galbeedka ay qaybsadeen wadamada Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska. Sidoo kale Yemen, Koonfurta Yemen iyo Waqooyiga Yemen ayuu kala baxeen. Saad ogsoontahay muddo fara badan ay laba dal kala ahaayeen. Xataa waa tii Koonfurta Yemen ay dagaalkii 7-7 Soomaaliya iyo Itoobiya ay usoo hilisay Itoobiya. Sidoo kale Suudaan waa laba shucuub, ma aha hal shacab. Shacabka Suudaan waa shacab ku abtirsada Carabta, kuwa dega Waqooyiga Suudaan. Kuwa soodka dega waa Afrikaan la mid ah Uganda, Kenya,